بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal weli waxaan ku jirnaa isxasuusintii aan isxasuusinaynay sidii aan uga faa'iidaysan lahayn bisha ramadaan ee nagu soo food leh ee dhowaan bilan doonta haddii ilaah yiraahdo. markan xalaqadan waxaan uga hadlayaa fadliga soomka uu leeyahay, in la soomo oo soonkaas ilaahay nagu waajib yeelay aan soonno fadliga uu leeyahay. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا، صومك أو صومه ذنبك على ضعفه. حديث في الصحيحين كجرا وأبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وكورنا يوحوليه نبي قفكي صوم بش رمضان إيمانا بالله، رمين والله سبحانه وتعالى ورميسين يهي إسلام مركاسن ورالي كي يهي واجب نمد الصوم إلهي وكواجب يلي كركيسا أجرنا كرجينا إلهي سبحانه وتعالى عن كشك سنين إنه أجر كهلي دونه حدنا وهو قان سمي أمرك إلهي صومي بشاس رمضان قفكي صومه ذنبقيسي هوري ولا ضعفا بويل الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنبقيسي هوري ولا ضعفا سبحان الله. ماني والبان ذنبونا مركا صونكو ومن أسباب المغفرة، أسبابها ذنوب تلقوا ضعفا. مركا إناد مالين والبقو بش رمضان أتصونته وإناد أديار قرودا أو آد كد داشا محايا لي. أولا وواجب وهدي آد لا إيمان ويسو عقوباتكم مدنيسو حداد لا تمادنا أجري جيسا وان أركي دوناي يعني إلهي أمباقرناي انت لقا ثوابنايو أعماشا كالي 10 جير، يعني 10 لابا لا لابا. لكن بشا محوها صونكا قفك الصومة أما رمضان هالصومو أما ما أركت يعني تطوع هالصومو صونكو أجري جيسا وحويا إلهي سبحانه وتعالى قرناي فإنه لي وأنا أجزي به حديث القدسي الله سبحانه وتعالى. يعني عمل كبني آدم كلي ما ضمان إسقى أسكله صومك موياني صومك أنا أسكله بويري أنا أبال مريناي أبال مرينتا يوحو إلهي كو أبال مريناي إسقى يعني وحاذا تصوري كرين وحاذا صوري سنكرين oo ma aragtay abaalmarina ayuu Allah subhanahu wa ta'ala kugu abaalmarin doonaa. sidaa darteed fursadan inay ku dhaafto ma walaal, waxa suuragal ah haddii aad sanadkan aad noolaato sanadka dambe inaadan noolaan. sidaa darteed awalan intaanan soonka bilaabinba horta ilaahay aan u toobad keenno oo aan nafteen u diyaarino inaan ma aragtay soonkaasi ka faa'iideysano oo uusan yani na dhaafin ramadaanka ilaa inagoo naloo dembi dhaafay oo ay Allah subxaanahu wa tacaala raali gelinay mooyaane. marka waxaan nafteydii naftiinaba u dardaarmayaa sidaan uga faa'iidaysan lahayn oo fadligaas faraha badan ee la sheegay ee ma aragtay axaadiistu tilmaamayso aan u gurubsan lahayn. fadligaasina ma aragtay wuxuu ku gaar yahay bishan. ilaahay bilaha waa kala fadilay. bisha ramadaan waa bishii qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey, soonkana uu ku farad yeelay. marka habeen waxaa ka mid ah laylatul qadr oo ka fadli badan 1000 bilood. marka runtii aad buu u nasiib daran yahay qofkii ay ku dhaaftahay dhayal oo aan ka faa'iideysanin. marka walaalayaal fursadaasi aan aad iyo aad uga faa'iideysano, aan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenno, balaankii iyo qorshihii aan ku qaabili lahayn isaa uga faa'iideysan lahayn hadda aan ka fikirno. intaas ayaan nafteydii iyo naftiinaba u dardaarmayaa. ilaahayna waxaan weydiisanayaa in uu nawaafajiyo soonkeedii iyo qiyaamkeedii oo salaadii habeenkii loo tukada ah iyo khayraadka ku jiro dhan inaan ka faa'iideysano. waxaan kaloo ilaahay weydiisanaynaa inuu naga aqbalo acmaashaas, yani soonka iyo qiyaamka iyo sadaqada iyo qiraa'ada wax walba maartay aan samaynayno. wajazaakum allahu khayran
وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.